عليكم أصحابتا qaaliga ah asxaabta ku xiran channelkayga Khayajiin meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan aad baan nii salaamayaa isku soo noqosho wanaagsan waa anigoo ah Khayajiin insha Allah maanta hal qodob oo muhiim ah ka wada hadlaynaa insha Allah qodobkeenaas maanta wuxuu ku saabsan yahay biyaha waad aragtaa inaan caagadeeda biyaha wato qodobkaas wuxuu ku saabsanaan doonaa maanta insha Allah biyaha biyo markaad maqashid horta waynu isku wada ognahay boqolkiiba 79 populationka adduunka in uu biyo ka kooban yahay meel kasta ay biyo yaalaan taas mid lamida haddii aad magaranaysaay aad dubkaaga ka talinaysid haddii aad rabto magaranaysaay even gymta marka aad joogto magaranaysaay inuu jirkaagu si fiican u koro si degdeg u koro markasta waxaad ku dadaashaa in aad biyaha cabtid sababtoo ah biyuhu waa lama huraan inay biyuhu lama huraan yihiin cid kasta oo isku ogtahay saqiir kabiir qof ma garanaysaay aan ogeyntaa ma jirto laakiin muhiimaddu waxay tahay in ayna dadku saa usii ogeyn biyuhu ma garanaysaay waxay tarayaan iyo ma garanaysaay waxay jirkaaga kusoo kordhin karayaan iyo biyaha la-aantood wuxuu jirkaagu noqon karayo isku wada ognahay in biyaha la-aantood inaad 30 cisho ugu yaraan aad cunto la-aan joogi karaysaa laakiin biyo la-aan aadan 3 cisho isku xigta aadan joogi karin xagga maxaa kaaga cad xagga waxaa kaaga cad in ay biyuhu yihiin muhiimadda koowaad brotherskayga biyaha ku dadaala weliba asxaabta gymta tagta asxaabta trainingka badan sameysa bro markasta waxaa ku dadaashaa biyaha even haddii aad borotiin qasanayso ku dadaal inaad biyo ku qasato creatineka isaga markasta waxaa lagu qastaa waa biyo bro insha Allah ku dadaal biyahan ka wada borotiin bas kale markaad soo kacdid biyo cab xoogaa kadib biyo cab far kastood qaadaysid biyaha noqoto heer waxaa gaadhaysaa marka uu jirkaagu ka fududaado jirka dadka kale uu jirkaagu ka caafimaad badnaado jirka dadka kale uu wejigaagu ma garanaysaay ka muuqasho badnaado wejiyada dadka kale finanka aad istaysaan aad caafimaad dareentid waxyaabo badan markasta ani waxaad igu imanaysaan insha Allah wixii talooyinka waxaad igu imanaysaan talooyin aad iga faa'iidaan haddii ay tahay talooyin ku saabsan dhinaca gymka haddii ay tahay mararka qaar inaad magaranaysaa quruxda magaalooyinka iyo waxaa soo yaraan aragna haddii ay tahay lifestyle-ka iyo ma garanaysaay waxyaabaha dhalinyarta every time insha Allah waxaan rajeynayaa inaan wixii wanaagsan ee idinka ina anfacay ee naftiina wuxuu taray aan soo gudbiyo insha Allah waxaan rajeynayaa videogan maanta intaas ku egyahay waxaan rajeynayaa inaad biyaha si wanaagsan uga faa'iideysan doontaan dad badan way ka faa'iideysteen laakiin inta ka aan ma garanaysaay weli faa'iidada ma garanaysaa biyaha aan saa usii gaarno waxaan rajeynayaa furuhu wuxuu ku jiraa biyaha ka faa'iideysi wanaagsan biyaha insha Allah videoga ku xiga ayaan ku kulmi doonaa waa anigoo Khayajiin ah waxaan rajeynayaa maalin wanaagsan oo qurux badan ha iloobin inaad channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saarto inaad like-ta dhac ku siiso asxaabta aad u share gareyso big love waa la share gareeyaa adduunka aan qabsano insha Allah nagaas kale adduunka waxaan rajeynayaa maalin qurux badan oo wanaagsan peace